munaasabad ay dad badani ka soo qayb galeen oo xilka ay kula kala wareegayeen barasaabka cusub iyo kii hore ee gobolkan ayaa maanta waxay ku qabsoontay xarunta gobolka Awdal ee magaalada Boorama. munaasabadan waxaa ka soo qayb galay wasiirka dib u dejinta iyo dib u dhiska Somaliland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha, agaasimaha guud ee wakaaladda korontada, gudoomiye ku-xigeenka hay'adda cilmi baarista iyo deegaanka ee NRAD, maayarka magaalada Boorama, saraakiisha amniga, xildhibaano, oday dhaqameedyo iyo mas'uuliyiin kale oo heer gobol iyo heer degmaba isugu jiray. gudoomiye ku-xigeenka hay'adda cilmi baarista deegaanka ee NRAD Axmed Maxamed Geele Dacar oo madashan hadallo ka jeediyay ayaa waxa uu soo dhaweeyay isbeddelka xagga maamulka ee gobolkan ka dhacay, wuxuuna gudoomiyihii hore ee gobolkan uu ugu hambalyeeyay waxqabadkii uu gobolka ka geystay intii uu xilka hayay. barasaabkii xilka wareejinaya Maxamed Daahir Cabdalla oo isaguna madashan ka hadlay ayaa waxa uu ka sheekeeyay waxyaabihii u qabsoomay muddadii uu xilkaasi hayay. waxaa kow ka bilowday in guddigii nabadgelyada ee dadka xukumi jiray in la joojiyo, dadku inay soo gaadho wax dareen in dacwad inay wax ku leeyihiin cashuurtan laga qaadayo, xukuumadda wax ka helaan. astaan waxa waa intii aan joogay 9 bilood muxuu ahaa 12 bilood sanad waxa bil dhimo weeyaan. magaalada Boorama aqal arday iskuulka una jirin ma jiro. iskuuladii ardayda lacag laga qaadayay oo la joojiyay oo muxuu ardaygu buug wax soo qaato. waxa kaloo ku daray in cadaaladii timid. gudoomiyaha cusub ee xilka loo wareejiyay Xasan Daahir Xaddi Xasan Ciid oo isaguna madasha ka hadlay ayaa qiray waxyaabihii uu suurtageliyay inuu xilkan hanto, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa: anuu extremis xisbigii hore ahaa runta waliba chief aqalkii madaxweynihii hore ahaa. waa laga yaabaa inay dadku la yaabeen isbeddelka yimid muxuu yahay. isbeddelka yimid wuxuu yahay xisbiyadu marka la tartamayo oo baa xisbi leeyahay, laakiin markuu tartanku dhamaado qarannimada waa loo sibayay. waxa ku yimid qarannimo, waxa ku yimid muwaadinimo. agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Cabdilaahi Xuseen Balaaki oo labada barasaab xilka u kala wareejinayay ayaa sheegay in go'aanka xil wareejintu uu yahay mid heer madaxweyne, isagoo sheegay in laga bilaabo maanta uu madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ugu wakiil yahay gobolkan mudane Xasan Daahir Xaddi Xasan Ciid. wasiirka dib u dejinta iyo dib u dhiska Somaliland Cabdirasaaq Cali Cusmaan iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Cali Xaamud Jibriil oo madashan ka hadlay ayaa markaa la isku soo aruuriyay hadalladooda waxay ku soo biyo shubanayeen in xukuumadda ay dadaal badan u wado sidii ay u hirgelin lahayd barnaamijyadii horumarka ay ballan qaaday, loona baahan yahay in lala shaqeeyo maamulka heer gobol. si kastaba ha ahaatee barasaabkan cusub ee maanta xilka gudoomiyenimada gobolkan la wareegay ayaa noqonaya kii labaad oo xilkan qabta taliya markii isbeddelka xukuumadda uu ka dhacay Somaliland muddo sanad ka hor ah. dhanka kale waxaa habeennimadii xalay madasha akhriska ee maskaxmaal ee magaalada Boorama lagu soo bandhigay buug aad u xiiso badnaa oo soo jiitay dhagaha dadkii ka soo qayb galay, iyadoo buugan magaciisa la yiraahdo You Can Win. waxaana soo bandhigay buugani arday ka mid ah ardayda sanadkani ka qalin jabinaysa jaamacadda Camuud oo magaciisa la yiraahdo Sharmaarke Axmed Maxamed Dacar. buugan oo ka hadlaya talaabooyinka qofka haddii uu qaato u horseedi karta inuu nolosha ku guuleysto ayaa waxaa soo bandhigaha buugani ugu soo bandhigay dadkii ka soo qayb galay madasha si aad u heer sareysa, isagoo buugani ku qornaa luuqadda Ingiriisiga. Cabdi Fataax Axmed, Somali Channel, magaalada Boorama.